oo wanaagsan waa telefishinka caalamiga ah Home Cable TV xaruntiisa Hargeysa sidoo kale waa barnaamijkeeni arrimaha cadaaladda iyo shuruucda barnaamijkeena maanta waxay noogu martiyaa oo igala soo qayb galay ugu horeyn Garyaqaan Ismaaciil Cabdi Daahir oo ah Garyaqaan ka howlgala Komishanka Xuquuqul Insaanka Qaranka Soomaaliland sidoo kalena ah la taliyaha arrimaha sharciga ee Komishanka Xuquuqul Insaanka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ku xiga Cabdi Ibraahim Yuusuf oo ah dhibane shalay laga sii daayay maxkamadaha dalka mid kamida isla markaana ku xidhnaa xabsiga dhexe ee Soomaaliland ee Madeira muddo 15 sanadood waa barnaamij maanta wata cibarkiisa iyo cajabtiisaba dhinacan waxa iga fadhiya mudane Axmed Wali Maxamed oo ah nin inta badan u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka dhibanayaasha ah ama voiceless peoples waxa kornaha ka sii xiga oo isaguna fadhiya Cabdi Ibraahim Yuusuf ducaalaan yiraahdo oo ah aabaha dhibanaha Cabdi Ibraahim Yuusuf oo isaga laftirkiisuna muddo 6 sanadood ku xidhnaa jeelka markii dambana laga sii daayay iyadoo meed ahaan marka loo sii daayay hadaba barnaamijkeenan oo maanta ah kii koowaad aan ku daafurana barnaamijka amuraha cadaaladda iyo garsoorka waxaan ugu horeyn bal weydiinayaa su'aalo kooban waxaan hadaba mar labaad ku noqonayaa dhibanaha Cabdi oo ku jiray jeelka Madeira ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waayaha nololeed ee soo maray dhibaatadiisa waqtiga dhibtu ku dhacday wuxuu ku hamiyay noloshu imika sida ula muuqato waxa uga qorshaysan dhibaatada jeelka nolosha inuu qoys ka gaaray inuu rajo ka qabay wixii uu kala kulmay intaas oo dhanba martibaan bal uga nahay dhagaha aynu furno indhahana aynu soo siino waa arin xibirteeda iyo cajabteeda iskale ku soo dhawow Cabdi mar labaad waxaan ku weydiinayaa maadaama oo 15 sanadood xidhneed ugu horeyn waxaan jecelnahay balinaad wixii lagu xidhay daawadayaasha sif tafaatiran aad uga waranto aduna soo koobina si xor ah u hadlaya kiiska lagu xidhay wuxuu ahaa waqtiga lagu xidhay hintaad xidhnayd iyo waayaha kala kulantay jeelkaad ku jirtay waya bismillaahir rahmaanir rahiim horta kiiskan la qabsaday horta kiis aan geystay mahayno shaqaan kulaha mahayno marka nin dila oo meedkiisa meel laga helay ayaa la yiri adiga dilay kadib aniga mid kala kadib waa la xiray mid kale oo ma garanaysaa kiiska lagu eedeynayay ma garanaysaa lagu soo wadeegay markii hore saldhigyada ayaa la kala geeyay marka aniga waxa la geeyay saldhiga dhexe isna saldhiga New Hargeysa ayaa la geeyay marka intaas un mana lahayn macal aabahay Ibraahim Yuusuf iyo ninka kale aabihii ayaa nala xidhnaa kadib laba habeen iyo laba maalmood markaan kala maqnayn ayaa la yiri laba habeen iyo laba maalmood markaan kala maqnayn ayaa maxkamadda la isku qaayay kadib jeelkii weynaa Hargeysa ayaa nala keenay waqtigaas misada buu ahaa waqtigaas wuxuu ahaa 1998 Allah marka jeelkii Hargeysa la geeyay kadib maxkamaddii ayaa noo bilaabantay maxkamaddii markii noo bilaabantay deetana kiiska wax nagu cadeynayo le nimankaas dilay ama Cabdi Ibraahim Yuusuf dilay toona ma jirin kadib maxkamaddii adigu judgment-keedii ayaa markaa isa soo taagay markaa xukunkii ama judgment-kii ahaa kiiska kadib aniga iyo Abba Ibraahim Yuusuf iyo ninkii kale aabihii waa la sii daayay marka uu ku soo sheekay dhaafay markii saldhigyada kala geeyay ayaa la yiri ninkii kale ayaa kiiska qirtay oo ninkaas kiiska qirtay baa kadib aduu maxkamaddii judgment-kii baa dhacay deetana aniga Abba Ibraahim Yuusuf iyo ninkii kale aabihii ayaa la sii daayay kadib markii la sii daayay ayaanu in badan markaan dibadda ku maqnayn ayaa haddana la soo celiyay
kiiskan loo soo celinayo wax shaqoon ku lahayn waxba yaraatee ma jirtaba macnaha waa la idin sii daayo banaanka aad u baxdeen kadibna hadana dib baa la idin soo haa dib baa la soo qabtay jeelkii Hargeysa ayaana la keenay kiiskii baa noo bilaabmay kiiskii markii noo bilaabmay adoo waxba aan hadal ku daaline kiiskii markii noo bilaabmay adoo kiiskii uu soo afjarmay ayuu go'aanka dhaco sidii sileeg aniga iyo Abay Ibrahim Yusuf iyo ninkii kala bixi ayaa la sii daayay kadib markii la sii daayay waxaan maqnaa sanad iyo 7 bilood meelaha ayaa haddana aniga iyo Abahay sideen lagu soo xiray markii la soo xiray maxkamadii waa inta kiiskaygu wuxuu ku noqonayaa waa maxkamadii gobolka Hargeysa marka kiiskaygan imkaan kiiskan dambe marka maxkamadda gobolka ka bilaabmay kiiska waxa haya gacanta ku haya nin la yiraahdo qalkii oo garsoore Cabdi Cawl jaamac la yiraahdo ayaa kiiska ka garsoora waniga garsoore imkana gobolka awdal maxkamadda rafaa ninka gobolka nimkaan rafeenka kayn ka gudoomiyaha kadib arrintan waxa noqotay show arrin laga soo shaqeeyay oo show aniga leejeedo oo la isleeyahay ninka kiiska dusha ka saara kadib waxa ku leeyahay maxkamadii go'aankeedii baa ayaa magaranaysaa isu soo taagay halkii aan ka eegaydo waa lagu sii doonaayo waxba lagu ma laha ayuun baabigu yidhi ayaa buu yidhi dib tooga shaambo buu yidhi ilaahay yaa buu keenay maxkamadii wax dhantay kadib jeelkii ayna lagu soo celiyay Abahay saddexdii kalena ninkii kale dilka ku qornaa ee labada jeer hore waana soo sheekay dhaafay laba jeer bay ninka in la sii daayay ayaa maxkamadu ay dil ku qaaday kadib aduu abaaro qiyaas maalintii dilka lagu soo qaaday abaaro saddexdii barkii ayaa Abahay iyo ninkii kale markii hore kiiska magaranaysaa labada jeer hore dilka lagu qaaday iyo aabihii ayaa la sii daayay kadib markii la sii daayay aniguna marro dilaac ayaan ahaa waxa la geeyay inta silsilad laygu xidhay ayaa la geeyay meel la yiraahdo oo ay ku jiraan guri la yiraahdo foo ay ku jiraan nimanka dilka loo haysto ay ku jiraan ayaa la geeyay kadib halkii anigoo yaaban oo marro dilaacsan ayaa kiiskii maxkamadii raacfaanka ayaa bilaabmay kiiskii maxkamadda raacfaanka markuu bilaabmay ayaa nin garsoore ahaa ma laga soo bedelay burco laga soo bedelay ayaa kiiskaygii loo magacaabay kadib maxkamadii raacfaanka markii la geeyay ayaa maxkamadii raacfaanku ay ugu dhawaaqday sideen ay ugu dhawaaqday kadib markii sideen ugu dhawaaqday nin la yiraahdo xeerlaano la yiraahdo baalkii sanjeex la yiraahdo ayaa yidhi ninka Cabdi Ibrahim Yusuf ha xidhnaado oo aan bil baan maxkamadda sare u qaadanaya kadib markii maxkamadii raacfaanku ay sii daysay sidii baa ninkii sanjeexlahan bilka iga qaatay ayaa sidii jeelkii lagu soo celiyay jeelkii markii lagu soo celiyay ayaa waxa marka taariikhdu waxay ahayd markan dambe maxkamadda raacfaanku ay sii daysana waxay ahayd 2003 imisaad banaanka joogtay markaa markan dambe raacfaanku ay ku sii daysay markan raacfaanku sii daysay ma baan bixinba aan ku soo noqonay kadibna xeer ilaalintii baa tagtay maxkamadii sare xeer ilaalintii ma isla markii maxkamadii mutigini gudoomiyaha ninkii sii daayay raacfaanka magaranaysaa ay sii daayay aniga ayuu yidhi gudoomiye wuxuu yidhi gudoomiye ambil baan ka leeyahay Cabdi Ibrahim Yusuf naa xidhnaado صح kadib ambilkii
aduu sheekada dheer baa haydo waxa waa film slowgii buu haade waxa la dhameyn kareema film slowgii buu ahaa oo laga soo shaqeeyay dadna adigu jeelkii ba sidii lagu celiyay jeelkii markii sidii lagu celiyay oo silsiladaasuna 24 saac ay saa igu xiran tahay aan ku soo noqday intaan jeelka gelinayna Cabdi waxa aad sheegtay baan filayaa goor dhaweytole ninkii kiiska dilka ah ku qornaa in magaciisii magacaagi lagu bedelay oo si xeeladaysan garsoorihii markaa gacanta ku hayay oo magaciisii intuu meesha uga saaray magacaagi soo galiyay xukunka sida uu ku riday taasi ma taasi way jirtaa taasi way jirtaayo halkii horta filimkan film dheer oo slowgii buu ahaa صح ninka loo jeedina taariikhun buu haatay marka ninkan garsooraha ee Cabdi Cawl Jaamaal ay raahdo iminkana awdalka gudoomiyaha